السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك dhammaan asxaabta ku xiran janalka. Waxay noo socday qisooyinkii nebiyada. Maantana waxaynu ka hadli doonaa qisada Nebi Isxaaq calayhi salaam. Nebi Isxaaq calayhi salaam waxa uu ka mid yahay nebiyada uu Alla u soo diray bini aadamka, wuxuuna ahaa wiilka Nebi Ibraahim iyo Saara, waxaana la dhashay Nebi Ismaaciil calayhi salaam. qisadiisana waxaa lagu xusay Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiista nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxaana ka baran karnaa waxyaabo muhiim ah oo la xiriira sabarka, raxmadda Alle iyo sida Allah u fuliyay ballamadiisa. Nebi Isxaaq calayhi salaam waxa uu dhashay xilli waalidiintiisu ay ahaayeen waayeelo. Saara oo ahayd xaaskii Nebi Ibraahim calayhi salaam muddo dheer wax carruura maysan dhalin, taasoo ay ka murugootay. markii dambana waxay u soo jeedisay Nebi Ibraahim calayhi salaam inuu guursado Haajara si ay carruur ugu dhasho. waxa uuna guursaday Nebi Ibraahim calayhi salaam Haajara, waxayna u dhashay Nebi Ismaaciil. muddo kadib malaa'igta Allah ayaa waxay u timaadeen Nebi Ibraahim calayhi salaam ayagoo u socda inay halaagaan qowmu Luud. waxayna u sheegeen inay u hayaan war farxad leh, taasoo ah in xaaskiisa Saara ay dhali doonto wiil loo bixin doono Isxaaq, kadibna uu u dhali doono wiil la yidhaahdo Yacquub. Saara waxay aad ula yaabtay warkaas, waxayna tiri, ma waxaan dhali doonaa wiil anigoo ah duq, ninkayguna uu yahay oday. intaasi kadibna Alla wuxuu ku irsaaqay Nebi Isxaaq calayhi salaam. Nebi Isxaaq calayhi salaam waxa uu ku koray guri cibaado iyo tawxiid lagu dhaqmo. aabihiis Nebi Ibraahim calayhi salaamna waxa uu ahaa haliye diimeed oo si buuxda ugu hoggaansamay amarka Alle. waxaa la sheegaa in Nebi Isxaaq calayhi salaam uu ahaa nin aad u deggan, akhlaaq wanaagsan, cibaado badan, dulqaad leh, oon xumaanta jeclayn, wuxuuna si dhow ula noolaa waalidkiis, gaar ahaan Nebi Ibraahim calayhi salaam oo baray cilmiga Alle iyo sidii loogu hoggaansamo amarkiisa. Nebi Ibraahim calayhi salaam waxa uu rabay in wiilkiisa Isxaaq uu guursado haweeney wanaagsan oo Alle u hoggaansan. sidaas darteed wuxuu u diray adeerkiis inuu ka doonto gabar cibaado badan. waxaana la sheegaa in Nebi Isxaaq calayhi salaam uu guursaday Rafaaqa oo ahayd haweeney xigta u ahayd qoyska Nebi Ibraahim. guurkiisii kadib Nebi Isxaaq calayhi salaam wuxuu Alla ka baryay inuu siiyo carruur, maadaama Rafaaqa ay muddo badan uur aysan qaadin. ugu dambaynna Ilaahay wuxuu ku irsaaqay 2 wiil oo mataana ah, waxayna kala ahaayeen Yacquub calayhi salaam iyo Ciisaw. Nebi Yacquub calayhi salaam ayaa noqday midkii uu Ilaahay u dooray inuu sii wado nebinimada, wuxuuna noqday awoowaha qabiilooyinka reer banu Israa'iil. markii Nebi Ibraahim calayhi salaam uu geeriyooday, Nebi Isxaaq calayhi salaam waxa uu noqday nebiga ummadda, wuxuuna sii waday diintii aabbihiis, isagoo dadkiisa ugu yeeray inay caabudaan Ilaaha keliya ee xaqa ah. Nebi Isxaaq calayhi salaam waxa uu ahaa mid cibaado badan oo ay dadkiisu jeclaayeen, wuxuuna dadka baray sidii ay ugu dhowaan lahaayeen Alle iyo sidii ay ugu sabri lahaayeen tijaabooyinka nolosha. Nebi Isxaaq calayhi salaam waxa uu noolaa cimri dheer, waxaana la sheegaa inuu dhintay isagoo jira 180 sano, waxaana lagu aasay dhulka la yidhaahdo Xebroon oo maanta ku yaalla dhulka Falastiin. qabriga Nebi Isxaaq calayhi salaam waxaa la sheegay inuu ku yaallo magaalada Xebroon, halkaasoo ay ku aasan yihiin Nebi Ibraahim calayhi salaam iyo xaaskiisii Saara. qisadan teeda xigtana waxaa ku soo qaadan doonaa qisada Nebi Yacquub calayhi salaam. intaa iyo intaynu isaga iman doono kulan dambe, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.